بسم الله الرحمن الرحيم. warbaahinta dhammaan waa idin salaamaya. ujeedada maanta aan ku yeelay xafiiskayga waxa weeye sidaad la socotaan dekreete madaxweyne ayaa xalay waxaan ku arkay website-ka waliba intaan arkinna waa la soo wacay oo dad badan baa soo wacay oo yiri warbixinka baa laga qaaday anoo wax ogeysiina la siin arinta iyada ah baan maanta idinku yeeray inta ana u guda gelin arintaas waxaan rabaa marka u horeeya inaan idin la wadaago waxqabadkaygii cabdirasaaq ahaan aan dalka iyo dadka u qabtay intaan Puntland joogay kaliya maaha inta xataa aanan imaan dalka aan ku sugnaa dal shisheeye sida Mareykanka aan ku sugnaa magaalada Minneapolis ee Minnesota. sidaad ogtihiin Puntland waxaa la aasaasay 1998 sideed sano kadib markay ahayd 2006 Puntland magaceedu wuxuu ku wareegayay oo kaliya ama ufuudda muxuu ahaa Puntland waxay gaaraysay oo kaliya Djibouti, Addis Ababa, Kenya iyo Imaaraadka. markaas oo aan ku noolaa Mareykan oo aan madax ka ahaa urur Soomaaliyeed waxaan isku dayay in magaca Puntland uu gaaro caalamka meel ka baxsan dhowrka dawladood. waxaan casuumaad u soo diray dowladda Puntland anoo Mareykan jooga casuumaadaas oo aan ka soo dhameeyay state-ka Minnesota markaas nin senator ka ahaa oo Norm Coleman la oran jiray. casuumaadaas ujeedadan ka lahaa waxay ahayd aan rabo inaan u sheego reer Puntland magaca Puntland inuu gaaro meel ka baxsan inuu gaaro North America ujeedadeedu waa ahayd. ujeedada kalena waxay ahayd Somaliland oo meel walba garaacaysa albaab walba garaacaysa u garaacaysa caalamkana maraysa aan ku ekayn carabaha oo dhahaysay Sool iyo Sanaag waxay ka tirsan yihiin Somaliland bal in mar un la arko wafdi reer Puntland ah oo North America maraya oo iyaguna arrimahaas u qareema cadeeyana in Sool iyo Sanaag ay ka tirsan Puntland. waa markii uu casuumaadii baan soo diray wasiirkii maaliyadda ee xilligaas ayaa yimid isaga wasiir ku xigeenkii markaas kalluumaysiga ee kheyraadka badda inuu horumarinaya Cabdiweli la oran jiray. waxay noqotay taariikhda Puntland waxay noqotay markii ugu horeysay jariid ka soo baxda Mareykanka ee la yiraahdo Star Tribune first page-ka lagu soo qoray Puntland. taasi waa waxqabadkayga koowaad. waxaa ii xigay markii aan dalka imid 2007 bishii July baan imid. October waxaan sameeyey waxaan loogu magac daro Puntland Diaspora Network oo markaa madaxweynihii xilka hayay Jane Raxmaalahaas iyo Cadde Muuse aan kala munaaqashooday ujeedkayguna ahaa in dadka wax bartay ee qaxay ee reer Puntland lagu xiro Puntland ay ku soo xirmaan oo laga faa'iisto aqoontooda. anigoo xilka wali haya baa doorasho dhacday waxaa ku guuleystay madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole. bishii March waxaan ka qayb galay shir lagu qabanayay waxaan leeyahay bishii October 2009 shir lagu qabtay Minneapolis oo ay qabteen Puntland Diaspora Forum qolo la baxday oo Cabdiweli Caligaas oo kamid ah. haddaan dib u noqdo marka aan ahaa Puntland Diaspora Network chairmankeeda aan ahaa waxaa jiray isku dayay dowladdii markaa Cadde Muuse oo madaxweynaha ka ahaa oo markaa ay u harsan tahay 6 bilood in la carqaladeeyo. waxaa la abaabulay shir ka dhaca Garoowe oo diaspora loo yeero. shirkaas oo daba socday shir ka horeeyay oo loo yeeray isimada iyo uqaash.
cabdiweli shirkaa wuxuu ka ahaa recruiter isagaa qorayay diasporaha ka imaanaya North America wuxuu deganaa Hotel National fiidkiina wuxuu fariisan jiray saare islaan meesheed shirkaas waan hor istaagay maadaama aan chairmankii ahaa Puntland Diaspora Network waayo waxa ii muuqanayay Puntland inayn waqtiga diyaar u ahayn carqalad siyaasadeed shirkii waa la joojiyay dadkii markaa yimid oo diasporaha ka yimid wixii markaa Dubai ka noqday maahane wixii kale oo 15 ah cabdiweli baa kamid ah ka soo horeeyay si nabada bay ku noqdeen cabdiweli anaa ka qaaday Garowe oo gaalkacay ka diyaar ka saaray waxa ka dambeeyay markaan taa ka soo gudbo inaan keenay Puntland iyo Soomaaliya mashruuci ugu qiimo badnaa barnaamijka ugu qiimad badnaa oo ah la dagaalanka burcadbadeedda Soomaaliya oo igu soo caawisay dawladda Ingiriiska waxay ahayd xilligaas la soo dhiibay bishii March 2010 wali waxaan ahay chairmanka Puntland Diaspora Network waxa si rasmi ah booska la igu magacaabay inaan noqdo agaasimaha guud bishii August 2010 inta u dhaxaysay shaqooyin aan la ilaawi karin oo media marxanti ka yahay baan qabtay anoo volunteer ku shaqeynay shirkii u horeeyay ee burcadbadeedda ciidamada badda ku jira iyo ay ku kulmaan odayaasha gobolka Nugaal oo ayl ka dhacay ninkii suurtageliyay anigu ah waxaan ugu magac daray isfahamka ama soo dhawaadka beesha caalamka iyo Puntland waxaa ka qayb galay oday dhaqameedyo oo hogaaminayay Sultan Saciid Maxamed Garaase culamaa u diin madaxda gobolka qaarkood oo taliyaha qaybta xilliga joogay gudoomiyaha gobolka Cabdi Xirsi Cali Qarjab xilligaas labada gudoomiye ku xigeenkiisa iyo gudoomiyaha degmada Ayl shirkaas wuxuu ahaa shirkii ugu qiimo badnaa ee la soo fariistay NATO iyo gobolka Nugaal ka socday kii ku xigay waxaan ku qabtay boosaas oo ay ka qayb galeen inta rajinay Puntland ay koobantay xad saaran kii ku sii xigayna wuxuu ahaa NATO iyo media Puntland ka howlgalo idinku ay ka mid tihiin marxantigeeda waa ka sawirada waa kuwaas waxaan hawsha u qabanayay bal in caalamku fahmo Puntland yes burcadbadeed baa ka kacday laakiin inay reer Puntland oo dhan ayaan ahayn burcadbadeed waayo waxaan nagu shaabadeysnaa reer Puntland oo dhan haddii qof reer Puntland maqan inuu burcadbadeed yahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin bacda shidda wa tacab oo hawshaas oo dhan aan soo qabtay bishii 8 baa la magacaabay agaasinka waxaa la hoos geeyay agaasin independent oo noqonay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xafiis baa laga sameeyay markaa waxa wasiirka ah Saciid Maxamed Raage xafiiskii Garowe ku yeelay waxa xiray oo albaabada u laabay Cabdullaahi Jaamac ninkii la hayay ee Cabdiweli markuu madaxweynaha noqday oo magacaabay wasiirka dekedaha mar iyo laba waraaqi waa ku ay hor yaalaan ayaan ogeysiiyay madaxweynaha xafiiskii inuu xiran yahay waxa laga goostay kiradii in laga bixiyo korontadii laga bixiyo wax laga aakhirka waxay u kaliftay meeshaan maanta idin kala hadlayo waa gurigeyga inaan xafiis ka dhigto waayo laba aan kala doorto inuu xafiisku xirmo iyo in aan hawsha sii wado marxalad kasta aan ku jiro mid dhaqaale iyo mid kale duruufta adag baan ku shaqeynay madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waan u sheegay aakhirkiina bishii July 2014 wuxuu ballan qaaday inuu agaasinkan ka soo jarayo wasaaradda dekedaha oo hoos keenaya madaxtooyada waxaan hor dhigay codsi ah in magaca la bedelo maadaama aan la shaqeynayno international communities oo burcadbadeed inay dhamaatay laakiin maritime crimes kale ay jiraan in magaca laga dhigo Maritime Security Coordination Office soo qor buu yiri qoraalkii waan qoray waan diyaariyay waa u geeyay
ilaa hadda oo maanta aan joogno laga soo bilaabo waa July 2014 ilaa hadda cabdiweli waraaqihii codsiga waa hor yaalaan waxba kama u qaban taa waxaan rabaa inay ogaadaan Soomaalida daawanaysa gaar ahaan reer Puntland waxqabadka waxaa kaloo ka mid ah duruufaha adagan oo ku shaqaynaya baan shir kasta tegaya waxaan nasiib wanaaga markay ugu dareed burcabadeed la aqbali waayay aan leenahay war lagala dagaalamo dhulka burcabadeeda waxaan ku casumay Garowe nin Banki-Moon uu ka dhigay la taliya xagga sharciga oo la oran jiray Jagland Garowe aan kula kulmay Copenhagen baan kula kulmay marna Nairobi kula kulmay waa ninkaan isran karo in caalamku noo soo jeesto Puntland u soo jeesto isaga sababo idinku badin mayo dalkaad joogteen waad la socotaan inta dhalinyaro aan ka soo daayay xabsi Seychelles waxaan la siixanay maxaabiis wareejin baan kala siixay waxaan ka keenay 69 dhalinyaro ah oo Boosaaso iyo Garowe oo kale waxay ka dhaxalnay barnaamijkaas iyo wada shaqaynta aan community la shaqaynaynay in Puntland laga dhiso xabsigii ugu fiicnaa ee ka jira qaaradda Afrika iyo akademiyada ciidamada booliska ee tababarada Seychelles baan ka keenay waxaan ka keenay Kenya baan ka keenay dhalinyaro xor ah waxaan 40 dhalinyaro ah ka keenay Maldives waxaan wali u qareemayay oo hadda waraaqahoodii hor yaalaan kuwa ku xiran Iran iyo kuwa ku xiran India inta ka sokow duruufaha adan waa ku shaqaynayo heer waxa la gaaray mushaharkii adeegii aan yaraa xataa la goosto maanta aan la hadlayo ana iska bixiya kirada xafiiska waxaan rabaa dadweynaha duruuftan ku shaqaynayo ogaadaan oo dhabta ah taasoo dhacday baa waxa yimid burcabeed way dhamaatay kalluumaysiga sharci darrada oo guriga carbash oo haddii xeebaha tagto habeenimo aad arkaysid sida loo jilaabanayo sharci darrada waa Iiraaniyiin waa Yemeniyiin iyo kuwa aan la kuleenahay oo wasaaradaheena iyo dawladdeena ay la kuleedahay liisamada bixiso waxaan hayaa documenti ku saabsan arrintaas oo maraakiib Kuuriya oo 4 ah ay ku jiraan xeebteena ilaa iyo muddo hore 2004 laga soo bilaabo maraakiibta Kuurida ah magacii bay bedeleen markii Kuuriyaanku ay ka soo saareen sharci ah nationalka ninka muwaadinka Kuuriga ee lagu arko ama lagu helo inuu ku leeyahay jilaabato sharci darro ah maxkamad baa la taagayaa bilaadeen qoraalkii waa hayaa isagoo halkan jira markii saa yiraahdeen Soomaali baa dabcan wada dawladdu waxbay ku ogtahay waxa loo bixiyay magac Soomaaliya afartii markab calankii Kuuriga ahna waa laga dejiyay oo waxa la saaray calan Soomaaliya magacyoodii waa hayaa haddii loo baahdo waa insiinayo iyaguna way soo yihiin waa meelaha laga soo galay bilowgii oo aan ka hadlay arrintaas waxa kale oo laga soo galay waxaad aragtaan halkan flyer waxaan bishii December 2015 qaban qaabiyay markii kalluumaysatada sharci darrada ku badatay wadanka waxaan abaabulay shir ay ka soo qayb galayaan gudoomiyaasha degmooyinka xeebaha ku yaala oo Garowe ka dhici lahaa ujeedku wuxuu ahaa 2 arrimood inaan caalamka tusno sida dadku ay uga daaleen kalluumaysiga sharci darrada iyadoo ay hadlayaan gudoomiyaashoodii xeebaha deganaa iyo goortayaashoodii oo mid message caalamka ugu diro midda labaadna aan dawladda federaalka markaa jirtay ku cadaadino inay caalamka ka codsato in lala dagaalamo kalluumaysiga sharci darrada arrinta iyada ah oo aan gogol xaar u dhigay waxaan sameeyay flyerka hadda ka hor baa Cabdiweli wuxuu yiri kalluumaysiga sharci darrada waa masiibo qaran
arrintaas oo idaacadda ka baahday inaan shirka qabanqaabinayo waxaa iyadoo aan shirkii dhicin ii yimid wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga ninka kulmiye lagu magacaabo. kulmiye wuxuu yidhi waxaad wadaa mudaahiraad, waxaad la wareegtay shaqadii kalluumaysiga. waxaase ku weydiiyey arrintaa ma u sheegtay buu yidhi cabdiweli. cabdiweli birri baan u socda baan. waa ninuu soo buuxiyey mar hore oo soo buuxiyey oo ku yidhi ninkani waa dowladdu ka soo horjeeda. cabdiweli subaxii haddaan u tegey oon damcayna hor fadhiisto taleefonkii aan u diray madaxweyne hoos baan joogaa wuxuu igu jawaabay waryaa baa kula socdaa howlahaaga waxaa tahay waxaa sameynaysa waa la socdaaya waxaa tahay mucaarad. mucaarid ma waxa ah qofkii wax qabanaya ummadday dalka wax u qabanaya. taas waxaan u daayay dadweynaha. arrintaas waagaa bilaabatay waa igu soo socotay aakhirkii xalay bay timi. aniga waxaan oran karaa soo daahday. xalayna waxaa soo dedejiyey waxaa la socotaan 2 doodood markabkii dhowaan la qabsaday ee Aris number 13 oo aan ka hadlay BBC kala hadlay wax kalena aan caddeeyey shirar badan oo caalami aan ka caddeeyey haddaan wax laga qaban kalluumaysiga sharci darrada ah burcabeed waa soo noqonaysa. shir New York ka dhacay bishii July 2015 baan ka caddeeyey. waxaa igu raacay hay-addan cuntada FAO la yidhaahdo oo iyaduna prestige jeysay. waxaa igu raacay oo hadalkayga yiri waa waxbaa ka jira qolo la yidhaahdo Oceans Beyond the Piracy. wax qarsoodiya ma ahayn. taa haddii aan ka hadlay jimcihiiba waxaan loo ku yeeray dood BBC-da ka baxaysay aniga iyo kulmiye iyo wasiir markaa fadhiyay BBC-da xafiiskeeda London. hadda sidaan u hadlay wixii la isweydiiyey idinku cilmiyo waa maqlayseen. kulmiye waa ninka isu kaaya diray cabdiweli maalintaasana bilaabatay hawsha. waxaa cudur noqday haddaad ka hadashid kalluumaysi sharci darro ahayd Puntland waxay ka noqotay inaad tahay dambiile. waxaan ku baraarugay xalay dikreetada madaxweynuhu soo qoray isagoo dalka ka maqan oo leeyahay agaasimaha guud waxaan uga qaaday xilki. waxay ku taariikhaysneyd 19 bish oo ahay shalay. xilka waa la iska qaadi karaa waa meerto ma diidani laakiin waa in sifo sharciya loo maraa. Puntland dastuur bay leedahay qof sharciya ka weyn ma jiro. cabdiweli aniga xil igama qaadi karo isagoo dalka ka maqan. dalka hadduu ka maqan yahay mas-uuliyadda dowladda awoodaha iyo mas-uuliyadahu waxay mas-uul ka ah madaxweyne ku-xigeenka. marka koowaad dastuurkii buu jabiyey oo ku xadgudbay cabdiweli u dhisnaa dowladda Puntland. waa marka labaade wuxuu meel uga dhacay oo humiliation ku sameeyey madaxweynihii dalka joogay oo madaxweyne ku-xigeenka ah oo isaga shaqadiisa ahayd hadduu dalacsinayo hadduu iridayo isagay ahayd inay ka timaado. waayo cabdiweli dalka waa ka maqan yahay. taasi waxay ku tusaysaa in cabdiweli aanu dan iyo helo kala hayn dalka waxa ka dhacaya. hadalkayga waxaan kusoo gaabinayaa xilka qaadistan looma marin sifo sharci ah. mar haddii marka arrintaas timid anaaba hadda ku dhawaaqaya aniga cabdisaaq maxamed dirhaan baa ku dhawaaqaya saacadda laga bilaabo xilkii agaasimaha guud ee la dagaalanka burcabeeda inaan ka tanaasulo.